waxaan salaan dhiiran u soo gudbinayaa galmudug ugu horeeyaan wasiirada iyo xildhibaanada. waxaan kaloo aad u salaamayaa odayaasha sarafta leh ee heerkan soo gaarsiiyey iyo culummada. intaasoo dhan waxaa ka horeysa gabdhaha reer galmudug oo isku kalsoon sharafna leh. waxaan kaloo aad u salaamayaa gudoomiyaha degmada runtii oo maanta xafladan ugu soo casuumay. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan idin leeyahay maanta waxa inay maalin weyn tahay idin sheegaan. 2007 waxaan rabnay inaan samayno sidaan oo kaleeto oo Maarso magaaladan Dhuusamareebeed 3 maalmood aan ka soo shaqaynaynay waa hagaajinay hool saan u qurux badan ma jirin laakiin teendha intaan dhisanay oo dermo qurux badan ku waxaynay oo katiifado qurux badan aan dhul dhan hagaajinay 8 saac markay tahay shabaab na soo waceen magaalada shabaabna waa xukumay maamul kale oo ay lahaayeen dadka degaankana waa isla joogeen 8 saac nala soo wacay waxa la yiri ma qaban kartiin taleefanka la ii qabtay naag yahay waalan oo xamar iyo meesha ka timid aan aqoon xamarna kama imaan aniga markaas aan xamar ma aadin Mareykan aan ka imid inta imid waxa la yiri Maarso ma qaban kartiin yaa diiday annaka diidna oo shabaab nina hebel oo yiri waxa ahay waaliga xukuma Dhuusamareeb ana ka mas'uul ama qaban kartid waxa tari kartid taraan waa qabanaynaa waa qabanay inkastoo arqalada iyo dadkii cabsi la gelgeliyay haddana waxaan ku faraxsanahay geesinimada gabdhaha reer Dhuusamareebeed ay muujiyeen ayagoo saas loogu dhaartay xafladii qabtay waxaan naga qaadi kartay laga qaaday haddaan geesinimadaas la helina oo gabadhii yareedoo fiicneedoo fariidada aheedoo halkan ka hadlaysay siday sheegtay haddaysan shacabku madaxdooda aysan kaalmayn aysan kalkaalin aysan la shaqayn madaxdooda ee shacabka guryaha ururdaan ee guryaha ay ku qarqarsadaan ee ku haystaan shabaabka sida xamar ka socota horumar ma la gaarayo. waxaa lagu eedayaa dawladdu may qabato maxay qabanay dawladda guryaha ku haysatiine kula joogo oo ku ag fadhiyo ma iska qaban kartid laakiin yaa ka qaban kara meesha uu joogo iyo meesha uu degan yahay ka dadka uu la degan yahay ka qaban kara hadaan shacab ugu shaqayn waxa bilad sharaf ku leeyihiin dadka deegaanadan degan siday u shaqeeyeen ay u dadaaleen ay meesha nabad uga dhigeen ayagoo ku daba safan muxuu ahay hogaankooda oo runtii u xoreeyay dalkan anil iigama sheekeenayo waa joog maalintii ugu horeysay dagaal dhacay oo shabaab halkaan yimid dadku waa ka cabsadaan shabaab ma sheegaan laakiin waa la sheegaa gudoomiyaha Prime Minister wuxuu sameeyay madaxweynaha wuxuu sameeyay dawladdu waxay sameeyay sunnul jamaaca hogaankeeda waxay sameeyaan joornaalada waa lagu dhigaa wali ma aragteen joornaal lagu dhigaayo wali ma aragteen shabaab asaasna leeyahay Allah lu gooyo indhaha Allah ka rido dadkii ay naga laayeen daariyay naga dumiyeen shacbigii naga laayeen leeyahay ma aragteen wali dawladdu waxa laga sheegaa laakiin waa aragteen oo lagu duba dhageen tii Cabdullaahi Yusuf ka soo bilaabo la dhahay ala la uswaaya hal laayo ilaa hadda lagu geynaayo marka aadaad ugu sharfantihiin sida aan nabad uga dhigteen hadda annaka niyad wanaagan ku joognaa meeshan cabsi kuma joogno qaraxa dhacay baabuur qaraxa ku jiro kuma joogno sababteedana waxa iska la hogaankeeda iyo shacbigeeda waliba haweenka oo ogahay waa idinkaga taariiqeynaa annakoo joognaan leeyahay shabaaba soo galooyo magaalada intay ka soo baxeen waa soo dhowyiin airportkay soo maraayo waa baxaynaa banaan halkaas iyo gurceel iyo meelahaas aan u cararaynaa 2 saac loo qabtaa 2 saac kadib meel kasta laga imaanaa haweenka garuumadooda wato rag iyo qoryihii wato ayadoo maxaa culimadii sunnul jamaaca ay hogaaminayaan meedka ugu yar ee halkaan ka tagaan wuxuu ahaan jiray 50 qof 30 qof 90 qof maalin aan 120 duugnayaan ogeyn halgankaas loo soo maray nabadan laakiin nabadda ma ugu filantahay kaligeed nabadaan qabnaa gabdhaheena la xooxooga oo waliba aan daaficaynaa
nabad ma aha kuna idin sheega nabadda naguma filna nabadda horumaray rabtaa nabadda waxbarashay rabtaa nabadda caafimaad ay rabtaa nabadda biyo ay rabtaa nabadda beeray rabtaa nabadda dhaqaale ay rabtaa maskaxdeeda iyo aqligeedana hoggaanka sunna wal jamaaca iyo hoggaanka maamulka galmudug iyo shacabka iyo odayaasha waa idinku jiraa hal keeno saan uma fadhinayne ayadoo la isku duuban yahay hal wada shaqeeyo wadankaana aan hormarino facayna aan la mid noqono oo adduunkaas aan la tartanno intaasaan idinkula dardaarma 8 maarso waxaa la yiri waa hal maalin oo naagaha la yiri way ku yar tahay 8 maarso taariikhdeeda idin sheegaa marka wax kasta waxbay ku soo baxaan oo lagu xusaa lagu xasuustaa alayhi salaatu wasalaam maalintuu dhashay oo mawlidka ahayd oo sharafta lahayd waa xasuusanaa waa xusnaa waa sameynaa waa maxaa loo xusaa maalintaas suubanaheena dhashay ilaahay janna ilaahay alayhi salaatu wasalaam 8 maarso waxa waaye naaguhu ma codeyn jirin adduunyadan waa horumartay la leeyahay oo Mareykanka iyo markaas shuuciyada dadka joogay kuwii kamid ahaa naagaha codka looma ogoleen inay cod galaan ay qofka ay rabaan madaxnimada wax ka noqdaan looma ogolaan jirin waxa dhacday marka 1909kii xisbi la yiraahdo Socialist Party oo laga tirtiray hadda Mareykan oo Mareykan ka jiray ashirweyne qabsaday haweenkii ku soo baxay hada doorashadan wax ka leenahay anaka waa inaan doorashada wax ka galnaa hadii kale ma jirto oo u soo halgameen maalintaas loo ogolaaday haweenka inay codeeyaan waxa ku xigsaday 1910 sanadkii ku xigay oo asna 8 Febraayo wadamada shuuciga ah socialista shirweyne qabtaan waxay u ogolaadeen haweenka inay codeeyaan waxaana la yiri maalintii haweenka ay noqonayso oo adduunka loo qaadanaa adduunku ma wada qaadanin qolaba si ay u heed laakiin 1975 United Nationka waa la fariistay conference-kii la galay Security Council-ka wuxuu soo saaray maalinta 8 Maars maadaama ay tahay maalintii loo ogolaaday inay haween noqdo waa maalin loo wada dabaaldego adduunka oo dhan wadamada qaarkood maalintaas lagama shaqeeyo waa fasax wadamada qaarkood haweenka la fasaxaa wadama anaka sideenoo kalaana waa u dabaaldegnaa laakiin shaqadeena waa qabsanaa waa usaasa loo kala qaybsay marka maalinta 8 Maars ma aha maalin un haweenka waa maalin taariikhdaas ku fadhida hadii marka haweenkaas ay noo ogolaadeen inay daraadood aan ku helno inaan codeyno kuweennana waxa la rabaa kuwaba inay wax keenaan la rabaa hadda aniga waa idin la dardaarmaa waxa keeni doontiin waxa waaye haweenkiina ha fiirinina xildhibaanaan rabaa ha fiirinina wasiiraan rabaa wasaaradahan ay rag u qaybsanayaan maxaa ka heshiin shaqooyinka rag ay qaybsanayaan maxay ka helaan haweenka meeshaas hoos horta ku dhagabal markaas kor u soconee hal xisaabtamo gabdhahan halkan jooga isteedi sameey meeqa wasaarada jirta meeqa haweena ka shaqeysa jagooyinkay ka hayaan haweenka ma biyantooni ay ka yihiin tirtirayaal mas shaqo fiican oo rasmi ah ka hayaan la soo kala ogaado gudoomiye degmada waa kana la xisaabtamo markaas la yiraahdo degmadaada dhuusbareeb wasaaradaha joogo saanay noo galeen markaas u gudbaynaa xildhibaan iyo wasiir marka halka hoos ka dhisano dadaal fiican socdo dadaalkaas Ilaahay ha noo kordhiyo nabadda la idinku hogaamiyo kumitida waxa ugu weyn oo lagu istareexo waa nabadda la idinku hogaamiyay oo madaxdiinu ay idinkeena oo dhalinyaradiinu ay u dhinteen cishta oo sii kordhiya yeesan dabcin meelna ka dabcin taas markii lahaayana intii kalena ha lagu daro ku dadaal ilmihiina inaa wax bartiin ku dadaal cunugaaga habeenkii markuu soo seexdo oo guriga yimaado oo cashada soo doonto soo u soo dheelay xaguu maray maxaa aaday maxaa qabatay yaa saaxiib la tahay xagee gashaa ku dadaal ilmihiina gacanta ku haaya ragii waxay guursadeen afar way fureen afar kale ku dareen 9 cunug ay leeyihiin maba kontrooli karaan kama warqabaan ka warqabaanba Soma hooyooyinka la marka adinka la idinka dhalay ilmahaas ilmihiin ogaada kumitida hooyo tii cunuga abaabin jirtay waa oo waligeed hayn jirtay
caruurtiina hogaamiya waxa aad uga xumahay aaway ma baxay muxuu ahaay caaqil xirs lugay ma baxay ina u jawaabaa waa iga tagay zina waa la gartay zina waa la yaqaanaa diintana waxbay ka soo saartay waana la qoray waana la yaqaanaa sida loogu dhaqmo laakiin intii lagaa sinaystaa haddana kufsi iyo xoog laguugu daray oo qalbiga lagaa dilay oo dadnimada lagaa dilay intee la geeyay taas marka ma zina laga soo qaaday oo gabadhii iyo wiilkii haddana si cadaalad loogu qaadaynin kufsiga gabdhihii intee la geeyay kufsiga gabdhaha kufsiga waa xun yahay gabadha qalbigeedu wax u dhibaaya gabadha dadnimadeedu wax u dhibaaya gabadha sharafteeda wax loo dhibaaya kii sharafta ka qaadana magaaladu maraya waa uu istreexaya teeda kale hal qabiilada Soomaaliya ee halkan degan ilaahay xaqiis waa u siman yihiin oo u sima gabdhaha qabiilada aad yaryaroo la leeyahay nalama eka gabdhahooda markii la xoogo sida xun loo maamulay hal iska daay ka soo qaada gabadhaada ninka wax xukumayo gabadhaadii oo saas la yeelay ka soo qaado wadaadka wax xukumayo oo diinta noo haaya oo diinta ugu aaminay siday diinta u fareysan loogu qaado waa ku qanacsanahay laakiin siday tahay hana loogu qaado gabdhahana xumaanta mana ah Dhuusamareeb kaliya ma aha waxa aan la hadlaa Dhuusamareeb kaliya lama hadlaa waa Soomaaliya oo dhan ay ka dhacdaa waxayna waa soo badatay laakiin yaa sameynaa ma taqaanay dadka sameynay waxaan dad fiyow ma aha qof fiyow ma aha waa dad daraaga iska badiyay maskaxdooda aan joogin waxa ay sameynayaan aysan ogeyn aan dhalinyaradan sharafta leh oo quruxda badan oo wax barato halkaan taagano wax dhisaysa ma aha Dhuusamareeb waxba ma noqonaysa hadii xamar la idin kaga sheego waxaas ka socda sida ay yihiin ururo yar yar oo gabdhaha aad u dadaala laakiin maba kala gaaraanba oo maxkamadda geeyo oo daba socdo laakiin lamaba kala gaarso waxa waaye daraagiskan maskaxdiyo dooranta ee wixiina sii bateen nolosha markay sii xumaato xumaanta loo sii socdaa mar kulligeen aan ka wada tagno culummadeena iyo shacabkeena iyo madaxdeena aan arintaas ka wada tagno gabdhaha yaryarka ah sida loo dhaamo ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado hal duceysto gabdhaha sida loo dhaamo waxaan rajaynayaa inaan intaan hana u qaadanina Dhuusamareeb keeska ugu yaraa ka dhaca aniga Dhuusamareeb iyo Gurceel ilaa 7 sano ku noolaa aad u yareed keesaska aan arkayna haddana inay sidii tahan u maleynaya keesaska aan arkayna aad u yareed intaasna waxa sameynay ilmihiina ka warqaba waxa ay yihiin kuna waani inaysan waxa sameyn ilaahay laga cabsado gabdhaha yaa la dulaynin gabdhaha waa noloshii berrito waa gabdhihiina waa ilmihiina waa walaalihiin waa berri xaaskaaga noqon lahayd marka hal ilaaliyo aad iyo aad u mahadsantiin maalin fiican Allah nooga dhigo oo weyn nabadana aan ku dadaalno gacmahana aan isqabsano galmudug kor Allah ka dhigo